بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقة شيئا قائمية قايالو ما أنت وعدك على نوي سؤال كان إني قد صدوبة سوائي سيادي متبادل الجبوتي أيكو أم بعضي ما أنت نوع أويجان هيل قرن أو ما أنت إذن كي جبوتي أو هيل قرن أو رقنا كدنتين بعد بلنا دارامين وحال كان جوغا قبضو تأسيدي قدبين يا انت نولنا uu tacsiinaya qarabadoodii yaaligoogii waxaan raadiyo adagaala ku soo dhaweynayaa eedo Saciida Bare oo France joogta. Salaam alaykum eedo. Alaykum assalam. waxaan maanta halkan aad ka gudbinaysaa tacsiid tiraanyale tacsiyad waxaan tacsiyeynaynaa maanta ragga Djibouti iyo Soomaaliya bale ee halka cadaawuhu ku helay inina way dhimatay inina way nooshahay iyana soo gaadhay. Ilaahay waxaan weydiinay inta nool inuu caafiyo inta dhimatayna Allah u naxariisto. waa misinkan u qorayna wax kale oo u tareynaa ma jirto. inta ay ka tageen waxaan u diraynaa samir iyo iibaan Ilaahay inuu ka siiyo iyaan u diraynaa بإذن الله الكريم انت نول إلهي عافيه ورقيني دريسك أنك نقادين أنك ندافعين أنك وحمري هالكاسي وحويان هالكاجي وحويان ووقتك إلهي نحرس جنة ينويديني الله أديبه انت نول الله عافيه انت وحي كهرينا إلهي سمري إيبان صادق عاسيه قريهانتين سمري إيبان صادق الله نقصيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. halka dhageystayaal ka dhageysanaysa radio Adagaala News imikana waxa ku soo dhawaataan gabadha kale oo Ingiriiska ka soo hadlaysa London. Salaam alaykum Safiya adiguna taasi tiraanyale oo gaarsiinaysa il qaran. waan dhawahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baad u mahadsantahay Adagaala News oo u taagan dhammaan dadka reer Djibouti meel kasta ay joogaanba ay wixii dib ku qabsada farxad iyo murugaba intaba u taagan. aad ayaad u mahadsantahay. waxaan halkan u marinayaa tacsi waxa weeyaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. geeridu waa xaq, qof walba saacadiisa uu dhintaa una qaadaa. walaalaha hiil walaal ee gobolka Beledweyne diko ay ku heshay waqtigu ku helay halkaana difaac ay walaalahood difaacayeen ku dhintay intii dhimatay. waxaan leenahay Ilaahay naxariistii janno Allah geeyo. inta noolna Ilaahay dhaawaca ay qabaan dhaawac fudud oo si khayr qaba uga kacaan Allah uga dhigo. dadkii ay ka tageen iyo eheladii iyo waalidadii hadday xaasas lahaayeen xaasaskoodii waxaan leenahay samri iimaan. hadday dhalinyaro ahaayeen waalidadoodii iyo aabahood iyo ehelkoodii intoodiina waxaan leenahay samri iimaan. indigeenigama dhiman annagana unaga dhinteen. samri iimaan Allah inaga siiyo saadiqa naxariis jannana Allah siiyo ayaan leenahay insha Allah raxmaan. kulli annaguna waan ka daba tagi doonaa. waa meel aan qof waliba uu daba socdo ajishu waa xaq. waayahay Safiya iyo Saciida labadiinaba su'aashan ayaan ina weydiinayaa. horta samir iibaan wiilasheena inta dhimata Allah inta nool Allah naxariis inta joogtana guul iyo sharaf ayaan u baryaynaa. siba laakiin eedayn baa jirta dawladda Djibouti ama madaxweynaha Ismaaciil Umar Geelle taasiba raadiyooga ka gudbiyeen sida caadadana madaxweynayaasha adduunka ciidankay diraan markay dib ku dhacdo way duulaan ay u tagaan oo soo taasiyaan ay soo arkaan. madaxweynaha Djibouti kamaan aragadaacada isagoo diyaaradna haysta meel kastana u duula. weli maan maqal isagoo oo tacsidii ama raggii dhintay u tegey. maxaad ka odhanaysiin Saciida ku horey? anigu waxaan ka odhanayaa inay dabiilnimo ka tahay. waa dabiil baan odhan karaa ta u horeysa. ta labaad kolkuu geynayay iyo maxay ahayd inay filtrage ayuu ku geeyay ragga. waxaana ka odhan karaa deed caalamku u arkaya inuu waxba ayuna ka dhignayn waayo raggaasi isagay dareeska u qaadeen. waxaan kaloo ka leeyahay
inta dirayska u sida ha arkaan kuwaasi daranyada in dirayska kolku daba socdo kolku dadka u dirayaan labada goorba xasuusay naf kale ku hayaan ma jirto markaasi kuwaasi caruurta dilaya ee hooyada dilaya inta dilay ha arkaan inuu waxba ahayn ha arkaan ay Safiya adiguna maxaad ka oranaysaa arinta aragtidaada kullay aan horta waxaan oranayaa waa nin mas'uula ilaahayna subxaanahu wa ta'ala mas'uulka qofku markuu qaado kitaab jaamaca ayaa lagu dhaariyaa dalka iyo dad iyo askarta intaba waa loo dhaariyaa marka waxa weeyaan anagu tacsina kamano maqal tagisna kamano arkin haddana anagu waa ka jirku noo dabqaday anagu diasporada dibadda joogta ah waxa weeyaan waa dad walaalahaya waa dad maxaan idhaahdaaye meel ka madaqad kaliyaan ka wada nimanay wayna damqatay kuwa Soomaalidana waan ka damqanay kuwa Djibouti waan ka damqanay qoysaskay ka baxeen dhamaanba waxaan leenahay samri ma saadaqalahay naga siiyo isagana waa mas'uuliyadiisii uu ka gaabiyay baan leenahay marka taas isagu ilaahay kala xisaabtami waa mas'uuliyadiisii uu ka gaabiyay ilaahayna wuu weydiin doonaa yoomul ayaam waayay radio Adagala oo si khaasa taasida u gudbinaya aniga magacaygu waa Umar Awal Ibrahim waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun walaalaha hil qaran ee halka ku geeriyooday samiriyayban caruurtoodii iyo xaaskoodii iyo dadkoodii inta dhaawac Allah u dhibireeyo inta nool ee shaqada haysana waxaan leenahay geesiyaal baatiin gabdhiyo wiilba halkan waxaan iga leenahay salaam kashka laabtan soo dirayna haniyad jabina waxaan salaalayaa si khaasa madaxweyne Ismaaciil Umar Geliye dawladdiisa waxa weeyaan mas'uuliyadda ay ku saaran tahay damiirkuna waa maxay damiirka waa adiga diyaaradka meel kasta u duula dadkaagii iyo caruurtaadii aad dirtay ma ka damqanaysid waa darxumo waxaan ku leenahay sidaas si daanta samee laga arka adigoo bule barda jooga diyaaradaada qaado waa adiga dawooyinka iyo istusnimada la carariye sharaftaada ku dhimo caruurtaadii baa dhimatay war wiilashaadiga gabdhahaaga diroo dagaalkaa tagaan waa kuwaagii unbay kuwana yihiin aduna ilaahay ku weydiin radio Adagala waxay leedahay sidaa insha Allah dhammaan waxaan ka codsanaynaa kuwa yeesan iyo EMB intuba ha soo garaacaan tacsida ka gudbiyaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leenahay samiriyayban dhammaan dadkii oo dhan meel kastoo joogtiinba wassalaamu calaykum wadaan santahay Umarow habeen wanaagsan deedo ay dami wanaagsan